Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee Wadani TV waxaan idin leenahay mar kale ku soo dhawaada maanta oo ay tahay maalintii khudbadda musharaxiinta madaxweynaha u tartamayo. Waxaan rabaa baarlamaanka qiimaha iyo qaayaha badan inay shaqsi kasta uu ka faa'iideysto cashirkan aan siinayno oo ah sida daacadda ah ee wax ku xulan karo ee qof tayo leh ee Soomaaliyeed u soo heli karo. 5 shuruudood qof kasta oo shacabka ka tirsan baarlamaanka ha meel dhigto 5 qodob ninkii buuxiyo inaad madaxweyne u doorataan ayaan idinkaga codsanayaa, taasi oo aad arkaysa cadaaladana ay ku jirto iyo sinaanta iyo kitaabkii quraanka ee amarteen qaranimada lagu heli karo. 5 shuruudood nin walba oo qof kasta oo shaqsi ah oo baarlamaanka Soomaaliyeed ka tirsan 5 qodob waxa ku doorto oo daacadda u dhow oo Ilaahna ka raali yahay. Number 1 bal horta marka hore isaga shaqsigiisan hormarinaya dantaada adiga baarlamaanka ah ee shaqsiyeed maxaa kuugu jiro maxaa faa'iido ku ah. Tan labaad waa inuu noqdaa inuu ka fikiro yaa 18 gobol ee Soomaaliya isu keeni kara ama ay raali ka yihiin oo ay jecel yihiin. 3 booskan loo tartamayo shahaadada la rabo ay khusayso waxa weeye cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa ka wato shahaado heer sare ah. 4 yaa sumcad ku leh bulshada caalamka ee ixtiraam ay yaqaanaan oo dunida lagu kala yaqaan meel kasta oo ay joogaan. Midda shanaad ay ku dooraneysana ha noqdo adigoo fiirinayo oo isu barbar dhigayo inuu yahay qof cusub oo aan ahayn maamuladii hore ee lagu eedeeyay inay musuqmaasuq ku lahaayeen. aan ku fasira 5 qodob ee wax aad ku dooranayso marka ugu horeyso adiga taada ayaan hormariyay maxaa dara kuugu jirto dantaada adiga baarlamaan waxa weeye 5 sano in aad hesho qaran, aad hesho mushaaro kugu filan, in aad hesho nabadgelyo kugu filan, in aad hesho ixtiraam bulshada Soomaaliyeed ee kugu ixtiraamaysa aabayaashii iyo geesiyaashii nabadda dhaliyay oo taariikhda buugaagta gala. inaad noqoto dawladda inay hirgashay oo ilamaan ka shaqeysay gobolada Soomaaliya oo dhan. Marka waxaa shaki oo faa'iidada ay tahay in 5 sanana shacabka Soomaaliyeed ay idin dooran karaan oo aan noqon karta mar kale baarlamaan buuxo. waa qodobka koowaad ee adiga ku anfacayo. Kan labaad ee aad dhigayso waxaa fiirinaysaa 18 gobol ee Soomaaliya ninka maanta hadii la doorto ay ku wada qanacsan yihiin waa ayo oo ay ka wada raali yihiin. waayo hadii hal gobol nin ka yimid aad doorato waxaad ogaanaysaa inay gobolada kale inta ay raali ka ahayn oo Soomaalida hadii ay sameyso colaad ka hor imaatana weligeed wax nabadgelyo oo la sameeynaya ama laga salgaari kara ma laha. waxay u baahan yihiin ninka la dooranaya inay gobolada 18 kaba ay la shaqeeyaan oo ay ku faraxsan yihiin oo ogaanayaan in qofkan si daacad ah loo keenay. 3 shahaadada ugu sareysa ee masterate-ka ama PhD holder ha ka haysto cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha waa inaad iyadana marka saddexaad aad soo dhigtaa halka oo sidaa tahay. marka afraad waa inaad keensataa oo ka taxadartaa bulshada caalamka yaa dhaqaale kaga helaysaan. bulshada caalamka diyaar ayay u yihiin maanta inay dhaqaale bixiyaan oo idinku bixiyaan haddaad keentaan nin aqoonteedii leh oo bulshadana ay garanayso aanan ahayna musuqmaasuqyadii 4 ahaa ee dalka Soomaaliya soo maray amaba ah kuwa dagaalo dambiyo ku leh oo ah maamul cusub sida hadda Professor Jawaari oo kale into. waxa marka shanaad ah oo aad iyadana isa keenaysaa in ay tahay yey Soomaalida oo dhan jecel yihiin oo takana ka gelin ama qof shakhsiyadeed ama mid deegaan ama mid afkiisa laga nabad galay oo ah qof u qalma maanta in Soomaalida nabad guud u keeni karo. 5 qodob marka fiiriso waxaad helaysaa hal qof ee tayada leh ee inta buuxiyay adigana marka codkaada aad siin kartaa. haddaba marka aad 25 isu soo barbar dhigto yaa buuxiyay shuruudahaas 5 aan ku sheegayo. markii la baaray oo la saaray daraasaad aad u dheer gobolada 18 Soomaaliya waxay raali ka yihiin oo ku faraxsan yihiin lana shaqeynayaan waa Professor Axmed Ismaaciil Samatar. midka adiga ku anfacaya ee qaranka ah ee qaranka ku noqonaysa baarlamaan ahaan ee adigana magaca ku soo jiidayo noqonaysa mar kale in lagu doorto oo bulshada sharaf aad kaga yeelan karto waa inaad doorataa Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
midda saddexaad waa nin PhD holder u haysto cilmiga siyaasadda ah iyo dhaqaalaha buugaag badanna ku leh bulshada caalamkana meelo badan talooyin badan oo dhaqaalaha ka siiyay buugtiisina caalamka oo dhan laga yaqaan bulshadana ay kugu dhaqaaleysiinayso oo aan shaki ku jirin midda saddexaad bulshada caalamka waxay aad iyo aad kula shaqeynaysaa si xad dhaaf ah oo raalli kaaga yihiin haddii ninka la seereeyana diyaar kuma aha inay kula shaqeeyaan Soomaali lacag meel ay dhigatayna ma jiraan waxa ay lacagta Soomaaliya ka sugaysa dhaqaalaha waa bulshada caalamka yaa been idin sheegin mihiga iyo qoladani waa iyagu qudhigooda waa la xukumaa oo waxa dhaqaalaha siiyo dawladahan hore u malay ee reer galbeedka la'aantiina ma shaqeyn kartaan waayo lacag Soomaali maanta meel dhigatay ma laha dalkan waa dal burburay ee u baahan dhaqaale in la galiyo bishiiba sida professorka hore idinku soo sharaxay oo yara sanadiiba 500 milyan oo dollar mana diyaar u aha inay lacag dambe ku khasaariyaan musuqmaasuqyadii oo kaleenta afarta soo maray ee lacag dambe la dhacay marka bulshada caalamkana way idinka sii jeedsan doontaa waxaan noqon doontaa baarlamaan iska qabsado sida afartiisa sanana ku dhameysto wax idin hirgalana aan jirin si ay taa idinku dhicin ayaan mar walba idinkaga taxadaraya bulshada caalamka waxay diyaar u tahay hal nin inay la shaqeyso oo ah Professor Axmed Ismaaciil Samatar haddii aad gaftaan oo meel kale aad aadaana waxaad noqonaysaan inuu daadka idin raacayo waxba yeesan shaatiyaal idin soo xiranin Farnaajo iyo Cabdiwali iyo ninka la yiraahdo Shariifka iyo waxba shaatiyaal isku soo xirinin waxa xaqiiqatan hadii professorka la doorto waxa macquul qal ra'iisul wasaare qiimo badan isagana inuu keeno sida Dr. Abdullah Dr. Buuba oo kale ama rag kale oo iyagana tayale golihiisa wasaarana waxay noqon doonaan kuwo ay mutacalimiin oo aqoon-yahaniina oo idin hogaamiya hadda qaran u baahan tahay daacad iyo cadaalad kitaabka Quraanka Kariimka aad martayna shanta shuruudood waxa buuxiyay waa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo qodbadiisii xataa maanta idin gilgishay oo aan shaki ku jirin haddii kale laakiin oo meel kale aadaan waxaan idin sheegayaa inay bulshada caalamka boorsooyinka idin kala laabanayaan oo diyaar aysan u ahayn inay nila shaqeeyaan oo idinka jeedsan doonaan dhaqaale darro haddii marka ay fadhidaan waxaan noqon doontaan kuwo ultima baarlamaankii burburo oo kala tagtaan waxaana soo laaban doono qolo loogu talagalay oo fuliyo wixii la dhaho ee bulshada caalamka dhahdo iyo waxba been idin sheegin Mahiga iyo Musafani iyo bariga Afrika waa dhuuna qaaltayaal u shaqaystay oo lacag la siiyay waxayna matalayaan dadkii lacagta siiyayna waxay diyaar u yihiin inay doorataan Professor Axmed Ismaaciil Samatar haddii meel kale aadaan waxaan idin sheegayaa inaad khasaari doontaan oo idinku Wadani TV wuxuu ka hadlana waa la arkaa oo fiirso ilaa 4 sano wixii aan ka soo hadlayno dhan way arkaan Soomaalida wax walbana bulshada waxaan ugu dignaa inta 6 bilood aysan arag ama hal sano ka hor baan ugu sii dignaa waxaan mar kale dignin buuxa idin siinayaa haddii cadaalad iyo ilaah ka cabsi ay idinku jirto oo aad kitaabkii Quraanka marteen fiirinaysaan qarannimada arabtaan waa inaad ugu codaysaan bilaa shuruud la'aan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo 5 qodob maanta 25 ugu sita oo wata intaba waa nin aan takana ka gelin dadka Soomaaliyeed waa nin 18 gobolba diyaar ay u yihiin waa nin bulshada caalamka ay jeceshahay waa nin معترف oo caalamka laga yaqaan waa nin afkiisa laga nabad galay oo weligii iyo alihiiba aan dad qadaafa ama jaa'ifa u geysan waa sida aad ogsoontihiin waa mas'uul buuxo oo dhinac kasta oo dhammaan bulshada ay idin fiirinayso calooshuna ku wada haysa in marna aad ka farxisaan oo codkiina aad ugu ridaan mahadsanidin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin waafajiyo halka khayrka ku jiro oo habeenka isniinta aad u doorataan madaxweynaha qaranka cadaaladda halka ay ku jirtana waad aragtaan oo ilaahay maanta wuu idin tusay in xataa baqtiya nasiibkii uu lambar 1 isaga qaatay halka waxay ku tusaysaa ilaah inuu cadaaladda maanta diyaar u yahay inuu nilal garab idinku siiyo haddii aad calooshiina cadaaladda ka raadisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh